salaamullaahi calaykum daawadayaal halkaad inaga dhageysanaysaan waa wargal media wararkaan idiin hayno waxaa ka mid ah qaraxyo siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Jowhar iyo magaalada Gaalkacyo ciidamada Jubbaland oo kulaalaya magaalada Beled Xaawo iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan degmadaas oo ku jira diyaar garow xooggan taasoo laga cabsi qabo in dagaal uu meeshaas ka qarxo dawladda Soomaaliyana waxa ay dhexdhexaadinaysaa maamulka Hirshabeelle oo khilaaf hareeyay ayaamahanba Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku wajahan magaalada Dhuusamareeb kadib markii la qanciyay iyo suldaanka Somaliland oo ku dhawaaqay inay tahay midnimada Soomaaliya mid muqadas ah fadlan daawade nagula xiriir qaybta hoose kuna qor fikirkaaga subscribe-na saar muuqaalka adiga oo share gareynayo si uu u gaaro saaxiibadaada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibadeena ku soo dhawaada wararkii oo faahfaahsan warar lagu kalsoonaan kara ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf saacadaha soo socdo uu ku wajahan yahay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Gaalkacyo ayaa ku guuleystay inay xaliyaan Xaaf waxaana uu ogolaaday inuu wareejiyo xilka dhinaca kale wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya qarax ka dhacay magaaladaasi in lagu beegsaday mas'uul ka tirsan wasaaradda maaliyadda Puntland gaari uu watay mas'uulkaas oo lagu magacaabay Cabdi Gube ayaa dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi qarax kale ee ka dhacay magaalada Jowhar ayaa la sheegayaa in hal qof uu ku dhintay halka 10 kalena ay ku dhaawacantay qaraxaas oo lagu aasay meel maqaayad ah oo lagu shaaho galbihii ayaa waxaa ku dhaawacmay xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Galmudug iyo waliba gudoomiyaha deegaanka Ceelbaraf waad ku mahadsantihiin la socodka wararkeena ee aan halkaan ku baahino